shirkan oo ka dhacay howlka shirarka dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa waxa gudoominayay maayo ku-xigeenka caasimadda Hargeysa mudane Cabdicasiis Maxamuud Xaashi Agoweyne waxa ka soo qayb galay dhammaanba gudoomiyaasha 8 degmo ee caasimadda xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waxaana diiradda lagu saaray sidii looga qayb qaadan lahaa gurmadka loogu jiro samata bixinta dadka ku abaarobay gobolada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo kulanka laga hadlay in dhawaan degmooyinka 26 Juun iyo Gacalibaax ay ka bilaaban doonto diiwaangelinta hantida maguurtada taasoo hore uga socotay degmada Ibraahim Koodbor gudoomiye ku-xigeenka caasimadda Hargeysa mudane Cabdicasiis Agoweyne ayaa waxa uu fariin u diray dhammaanba shirkadaha ganacsatada iyo iskaashatooyinka caasimadda Hargeysa isagoo oo sheegay in kulan degdeg ah ay isugu yimaadaan maalinta baritaa si looga hadlo samata bixinta dadka ku abaarobay gobolada bari ee Soomaaliland taa nambarinka caasimadda ay sheegayeen waa oo inay caasimaddu lahaataa number qofka adduunka dabadiisa jooga gurigii iyo wadadii iyo xaafadii intiiba numberka lagu soo qoro oo waa shaqada horena Koodbur uga socotay baritoolana ka bilaabmaysa Gacalibaax iyo Juun talabaad aan leeyahay waxa weeyaan dhammaan shirkadaha ka hawlgala caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkad waliba muwaadinimadeeda iyo iibkeeda dadku waxay wax kaga iibsan doonaan sida ay uga qayb gashay abaarihii waxa aan leeyahay iskaashatooyinka caasimadda Hargeysa ka shaqeeya haddii yihiin sariibadaha haddii yihiin iskaashatooyinka basaska haddii yihiin iskaashatooyinka khudradleyda haddii yihiin iskaashatooyinka hilibka haddii yihiin dhammaan iskaashatooyinka oo dhan caasimadda ka hawlgala heer kastay leeyihiinba waxa baritooda haddii ilaahay 10 subaxnimo inay yimaadaan howlka dowladda hoose iyagoo oo iskaashato waliba ay ka soo qayb galayso waxa ay dadka abaaruhu ay ku dhaceen ay kaga qayb galayso